oday Siciid Cali Dacar oo kamida odayada waaweyn ee gobolka Togdheer oo si gaar ah ula hadlay telefishinka SBC ayaa uga mahadnaqay komishanka doorashooyinka qaranka sidii wanaagsaneed ee ay u hageen doorashooyinkii dhawaan ka qabsoomay Somaliland sidoo kalena waxa uu jawaab ka bixiyay hadallo ka soo yeeray mid kamida odayada magaalada Burco kaas oo eedeeyay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad waana kan Siciid oo ka hadlaya arrimahaasi waxaan ka mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka oo ka yahay guddoomiyihii komishanka Cabdirasaaq Riyaraac oo markii hore sidii dadkuba ogaa sida fiinta looga qayliyay xusbiyada mucaaradku uga qayliyeen oo ay aad uga qayliyeen iyagoo ka baqaya cadaalad darro iyo inuu waxa weey ku shubasho sameeyo taas uu ka baaqsaday oo uu ku mutaystay wixii lagu yaqiinay ee aan ku taageeraynay aan lahayn warka moodaysaan maaha wuxuu sameeyay record buu sameeyay ninkaasuna iyo tiimkiisu abaalmarin iyo mahadnaq bay naga mudan yihiin inta hadana ka gudbo shalay waxa magaalada Burco ka hadlay doorada hadlay maayirka Burco wuxuu ka hadlay arrimo badan oo xagga siyaasadda u badan iyo xusbiyada waxa jawaab degdeg ah markii la soo fadhiistay oday reer Burco ah oo leeyahay oday sugulle ayaan markii hore in taariikh ay ka siinaya iyo maayirka Burco isqabadkooda iyo halkay sartu ka qulantay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin iyo gabadhii col maaha nabadna maaha sugulle iyo maayirku waxay isku hayaan oo isku qabteen oo isku maandhaafsan yihiin oo had iyo jeer waxa weey hadalkoodu ka kaca sugulle wuxuu ku leeyahay magaalada suuliyadan ama xamaamada la kireeyo babliga loo yaqaano kuwaas oo toonka magaalada ku yaala dawladda hoosana mar walba waa dul taagan tahay bulaacadiina urtay iyo biyaad sayrisay iyo halkan kuma haboona ayuun bay dul taagan tahay halka horta waxa la isku qabtay ee waxa weeye dad u hiilin ma ahayne waa dan ayaga xagga maamulka iyo xagga ganacsiga suuliyaasha ka soo taxanayd bay ahayd sugulle wuxuu yiri labada beelood ee Burco wada degan ayuu Muraad isku dhufanaya oo isku xoqaya soo waxaan ilaawaba nin xumeeyay ogeysiyo soo waxaan ilaawaba nin xumeeyay ogeysiyo sugulle wuxuu moog yahay oo iska laga maraya shirkii uu ku qabtay meesha la yiraahdo gacan libaax shirkii beeshiisa la ku qabatay ay go'aamada ku soo saartay ee waxa weeye ay talada iyo tusaalaha iyo danahooda kaga hadlayeen wixii ay habar socdo ay ka yiraahdeen sugulle goobjoog buu ahaa xusbiyada waxaan leeyahay labada xusbi ee waxa weeye maanta labadeen maayirka haystaan waxa weeye siyaasadda ay ku wadaan la aamini maayo waxaan leeyahay ciro haddaad heshiisyo gashay haddaad cid la heshiisay haddaad musharaxiintaadii qaar la ballantay haddaad odayaashoodii beelahoodii la ballantay markii ay soo baxeen haddii odayaal Burco jooga ku yiraahdeen waxba kama jiraan haddii sugulle iyo odayaal ka mid laabta iska ka garaaceen oo laandheera ku sheegteen oo caga dhulka kugu dhufteen iscaasil baan ku leeyahay bardaan go'aaga socon iscaasil baan ku leeyahay isaga madaxweynaha waan mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka waan mahadcelinayaa mar labaad halkana baaq baan uga dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne labadan xusbiye la eeday ee labadan ilmaadeerkii wataan labadan ilmaadeerka ahi wataan ee mid waliba ballanka ka baxaayo ee aan aaminaad lahayn ee aynu shalay ka ogeyn Faysal Cali Waraabe wixii uu ku sameeyay Jamaal Cali Xuseen ninkii xusbigiisa dhulka ka qaaday ee cirka geeyay ee wax ka dhigay wuxuu kula hadlay halkuu mariyay waynu ognahay aaminaad bale ninka la yiraahdo waynu arkaynaa mayd maxamed bay kala tiisido suldaan baa u dambeeyay waxa ku soo gabagabaynaya madaxweynahan ka codsanaya sharaftii iyo maamuuska iyo karaamada leh kuwan laba dugsan kare waxaad noo furtaa urradii siyaasiga ha loo ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.